إن سيدا أي دقاتير تشيغين سنببها إبرا هيدين وحي آنينايين سيجارك أيوب بتصدي صاحبكي برنامجka ka hadlayo waa adeerjeeke oo la wareystay oo dhahay ajakis wuxuu u dhintay sigaar adeerjeeke okay abe sigaar u dhintay dhakhtarka uu ku sheegay okay adeer sigaar ugu horeysay faamilka iyo qoyska uu ka dhashay Cabdi Muriidi Dheere Ajakis ayaa ka hadlay aflagaado loo geystay marxuumka Allaha u naxariistay xilligii lagu aasayay qabuur ku taala magaalada Muqdisho hadaba JK oo kamid ahaa saaxiibadii ugu dhawaay Ajakis ayaa halkaasi ka sheegay arrin fadeexad iyo ceeb ku ahayd sharaftii Ajakisna uu meel kaga dhacay hadaba faamilkii ayaa markii ay tacsidii u dhamaatay waxay ka jawaabeen hadalkii gafka ahaa ee ka baxay JK wiilka dhalay Ajakis oo afka furtay ayaa muuqaal iska soo duubay hadaba daawadayaal waxaan kula wadaagi doonaa wixii ay ka dhaheen gafkaasi loo geystay marxuumkii dhintay Allaha u naxariistay ee Ajakis hadaba intaan u gudagelin muuqaalkan fadlan marka hore muuqaalka la garay si uu u baaha una gaaro bulshooyinka Soomaaliyeed sidoo kale nagu soo biir oo kamid noqo asxaabteena adigoo channelka subscribe dhahanaya muuqaalkana share gareeya si dad badan oo ugu duceeya Ajakis aynu u helno walaalkeen marxuumka ahna aynu u bixino suurta Allaha u naxariistay Cabdi Muriidi Dheere Ajakis waxa halkaasi ka dhacay arrin runtii dadka Soomaaliyeed naxdin iyo walwal iyo argagax ku abuurtay waana markii JK oo dul taagan qabuurtaas saaxiibkiisii dadka isugu dhawaayeen ee Ajakis uu halkaasi ka sheegay arrin dadka Soomaaliyeed naxdin ku abuurtay waana markii uu sheegay in Ajakis uu geeriyooday balwad uu isticmaali jiray hadaba markii ugu horeysay wiilka Ajakis ayaa arrintaasi ka jawaabay waxa uu sheegay in JK uusan waxba ka ogeyn xaaladda caafimaad Ajakis uusan xaaladiisa isbitaalka ee qaaska ahna ka warhayn hadaba bal marka hore muuqaalka JK aan isla daawano inta aan kula wadaagin muuqaalka wiilka Ajakis إن سيدا أي دقاتير تشيغين سنببها إبرا هيدين وحي آنينايين سيجارك أيوب بتصدي صاحبكي أيوب بدنا marka wallow macnaa adiga asbaab bini aadam asbaab la'aan ma dhinto taas sababteed taasay lahayd sigaarka badan sanbabaha macnaa ibray ahayn neefta dhibaysay marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin hadaba arrintan gafka ah ee cad uu u geystay Ajakis ayaa waxa ka soo jawaabay reerka uu ka dhashay Ajakis waxayna tilmaameen in ay tahay gaf cad oo loo geysanayo aabahood hadaba bal aynu soo daawano muuqaalka wiilka Ajakis أول ما أدرجيك كوبلاوا هرسا وما سنت أدر كل بوسك أبو مركون أنت أنو بحسي أنا درينس سعادة وما سنت هاي كل بناء آدم لابد برنامج ومركا فرح سنت يوم مركا بروح سنت هاي استيلا خير سي هذا رب بدن نجعله أبو نوتي خفا وباهنين من هاي هل خفي لو خفنا أكتر وحكي معهن صوتوا سومال بنا نبض جعل أجيك الصومالي وكلمت معنا قبيل إنه سنكدمن أنا جن أقول نكدمن أنا جعبين واي ونكدمتي لكن دت كنا جالس يحلون بضولا شع صوم دت الصومالي اللي هنا مثلا هاي أدرجيك وحكي لكم هايستو أدرجيك أبه أصل لما دلنا نسكو أب معهن ما أهنك إسبتالك كي ما أهن ما أهنك أو بنويك العقد دي بس ما أهنك دكتورك لحال أسمعهن barnaamijka ka hadlayo waa adeerjeeke oo la wareystay oo dhahay Ajakis wuxuu u dhintay sigaar adeerjeeke okay abe sigaar u dhintay dhakhtarka uu ku sheegay okay adeer sigaar ma cabtid ma sabiya cabta iyo shukulaato cunta beerto waxyaabo qaar ilaa ka xishooda fiican abe saaxiibkaagu ahaa saafka ay ka sheegaysid lacala taada kaaga soo qaaday abe sigaar u dhintay taada ka hadlaysid اوكي صاحبك واي وحياة برايفت كيس واي بابليك او صديقي كل في عنده كل صحسنت ان ابي صاحبك ابي بكسوق بس كذا مالك هذه صاحبك وحياة اسي برايفت انا بولشده على سوقاته Ajakis wuxuu dhintay sigaar oo dhintay sanbabiya waxaan noqday xaas ceeb waay ana hada uu soo wici karo kula hadli karo ku dhigi kare adeerjeeke maxaa ka wada video kan views ina ku helmo soo dirin مسوقلي لكن حقيقة إن دتك أشياء مسوقلي إن بين لو أرتاحدر كل إن أدار كنا وكحشون ويا سبتوا أدار كسب حقيقي هلوسا أبي سحكي ساتما أدار حتى كمدي له لكن احترام جعل أبي وخوا أدار كودا ولا احترام كأبي بنك هاجرو أبي خوف كهوسة واي خوف دينتي ومحون دينتي واي فعندنا بنك شيء توقع دنت هاي سبتوا والد كي سمته ولا كي سمته
qofkii uu dhalay ma tihid dhakhtarkii oo meesha ku daaweynaya ma taqaanid aabahii sababaha uu dhintay maxamed cabdi muriid kaliya ogaan kara aniga ma fahamtay hadduu sigaar u dhintay adeerjeeke waxa waaye adina maasha allah karfintaa sii diyaarso saa sigaar u cabtid waa ognahay marka wax kale ma ku dhahay ilaah ku naxariisto maasha allah adina naftarkaaga geeriya ku kusoo dhow adaa afkaaga ka dhahay nin sigaar cabo waxa waa dhimanaa dhahday marka adina ilaah ku naxariisto waxa waaye hadda kuusii hormarinaa ilaah ku naxariisto adeer hadalka aan ku dhahay adaa ay ka keensadaan aabee inaa khalad waxaa ka sheegto u qaldaneed sababtoo aabee weligiis wax kaama sheegin xumaan kuma geysanin inaa intaas dhaha khalad aabee sababaa uu dhintay waa la yaqaanaa isbitaal uu joogay qof walba oo inuu ogaado horta khasab maahan ilaah u naxariisto aabeega wax kale kuma dhahayo haddaa aragta 100 mar iisoo jawaab views igu raadi musalsal ka dhiga waxaan kusoo naqsan maxamed jacayl oo dhigi karta laakiin ballan iyo axtiya kaaga qaada mar dambe inaan kusoo jawaabin waa hadal dambe 100 mar haddaa video soo duubta xataa waxaan kusoo dhihi doona malaha intaan ku filan shacabkana waxa uu sheegaa adeerjeeke waxyaabo ka hadlaay wax ka jira malahan abeen sigaar waa abeen maahan inta malaayiin oo sigaarka cabo haddii waa la soo tirin hallo inta magada kuma soo kornaa xawaari laakiin asbaab sigaar ku quseeyo aabee uma dhimanin marka ninkan oo views wax ku raadinayo waxaan dhihi lahaa adeeg ku dhibay adeerjeeke ani ilaa hadda wiil adeera kusii dhaha sababtoo ah aabaa jecel oo khawa kusii dhaha maane jeeke ku dhihi lahaa laakiin kuma dhahayo adeerjeeke ku dhaha haddaba arrintani waxa ay muujinaysaa in JK uu ka dhacay runtii qalad aad weyn weliba si bareer ah haddaba JK weli wax raaligelin ah kama uusan bixin waxaana dhimashadii Ajax laga joogaa maalmo haddaba waxaan leeyahay JK haddii hadalkaasi uu haafiyo iyo qalad kaaga dhacay ama haddii xitaa aad ahayd qof qalqalsan oo ka naxsanaa geerida saaxiibkii waxaad ku hadlaysan aadan hubin faldan soo raaligeli reerka uu ka dhashay Ajax waxaad ku xadgudubtay sharaftiisa cirdigiisii haddii uu xitaa isticmaalo balwad ma ahayn wax qabri laga dul sheego maxay la marxuumku marka uu dhinto kaliya waxa uu mudan yahay in loo duceeyo alla loo bariyo ma ahan ma mudno in sharaftiisii iyo cirdigiisii lagu xadgudbo waxaan ku leeyahay JK Allah u laabo walaalka muslimka ah ee saaxiibkaaga ah raaligelinka bixi gafkii aad u geysatay haddaba daawadayaal warbixintii aan ka diyaariyay halkaan ayaan kusoo gabagabeynayaa inta aan muuqaalkiisa kala kulmayno sida iyo nabadgeliyo mahadsanidin